Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaami dhammaan walaalay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale iyo walaashiin Xabsi Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh wax badan aan maqnaay. Waxa waaye insha Allah waan soo dadaali doonaa. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc aad iyo aad muhiim u ah kaas oo taabanayo aniga iyo dhammaan waalidiin badan. Mowduucaas oo ah maxaa la dhahayay shaashada badan ama ilmaha fiirsashada daawashada badan ee fiirsanayaan ama ha ahaado telefoon ama ha ahaado TV ama ha ahaado tablet haddaba waa dareemi karaa sababaha inta badan waalidka ee ugu daaraan yacni cunugaas in la mashquuliyo ama waalidka naftirkooda si ay howl u qabsadaan ee cunuga iskaaga mashquuliyaan ee ugu dhiibaan ama kaleeta aysan haysaninba qof caawiyo ilmaha ka haayo marka waxay u arkaan shaashada habka ugu fudud oo cunugaas lagu mashquulin karo si ay ayadu wax u qabsato ama cunugaas ay iskaga dejiso marka su-aasha ugu muhiimsan oo aan rabno inaan ka jawaabno laakiin waxay tahay maxaa ku dhacaya maskaxda ilmaha yar marka uu waqti badan ku qaato shaashada inta badan ilmaha roroon waxbarashay kala aadaan oo waxa ugu daran oo hadda taleefanada loo dhiibo waa ilmaha aadka u yaryar oo guriga ku haro oo aan waxbarashada aadin marka ilmaha marka qaab nuucee ayay u saameysaa shaashada badan dhowr qodob ayay u saameynaysaa kan ugu horeeya haddii aan ka hadalno waxa waaye ilmo aad u yar oo weli hadal baranin haddii aa u dhiibtid telefoon ama TV aa u daartid waxa ugu horeeya ku dhacay waxa waaye inuu dibdhac ku yimaado hadalkiisa oo cunugaas ay ku adkaato inuu barto hadal fiican oo wanaagsan ama ha ahaado luqadii oo u dhashay ama luqad kalabo waxaa arkaysaa cunug yar oo Soomaali ah oo gurigiisi dhan Soomaali looga wada hadlo laakiin markii aa u tagtid oo asaga hal xab Soomaali uu aqooni sababta ay tahayna oo shaashadaas u daawanayo oo wuxuu ka baranayaa luqado qalaad ee ugu badan tahay Englishka qaarkoodna aa arkaysid hataa Englishka si sax inaysan u baranin maxaa yeelay wax toos ah oo systematic ah oo saxan ma fiirsanayaan marba barnaamij uu cunuga geenaya marba eray uu qabsanaya kabacdi waxaa laga yaabaa cunugaas inuu kula sheekaysana hadalkiisana aada fahmaynin waxaa kaloo uu keenayaa feejignaan la'aan oo cunugii attentionkiisa dhanaa dhumaayo cunuga adoo la hadlaysa maskaxdiisa ma joogto waxaa keenaysan screen time ka badan waxaa kaleeto oo cunugaas ku dhici karo hurdo xumo cunugaas inuu hurdo fiican heli waayo inta badan waxaa kaloo ku dhacda cunuga caafimaadkiisa inay dhowr siyaabood ee u saameyso sida cunuga inuu indhaha oo culeys uga imaado iftiinka badan iyo shaashada badan oo indhihiisa oo dhib u keeno waxaa kaloo u keeni karaa qoorta iyo dhabar xanuun sababtoo ah cunuga maanta dhan shaashada uu fiirinaya ama wuu fooraara ama korkor u fiirinaya labadaba uma fiicin qoortiisa iyo dhabarkiisa maadaama cunugan uu yahay cunug hadda koraayo oo jirkiisa weli oo jilcan yahay waxaa kaleeto u keentaa ilmaha qaar cayil maadaama cunugan maanta dhan uu fadhiyo oo maxaa wax dhan qabanaynin activities sameynaynin oo ordaynin oo boodboodaynin because ilmaha waxaa loogu talagalay intay yarin intay nashaad leeyihiin ee boodboodaan oo ordaan oo inta ka dhacaan laakiin cunug maanta dhan shaashad fiirinayo waqti uu ku ordamaba heystaba soo maahan so waxaa laga yaabaa cunugaas inuu cayil oo zaid u cayilo waxaa kaloo ay u keentaa dabeecad xumo saa'ide cunugaas shaashada bartay maanta dhan inuu fiirsado telefoonka ama tabletka hadaa ka qaadi ama TV ka damisid waxaa ku dhacayo cunugaas inuu zaid u qayliyo xanaaqo oo diido dhulka isku rafiyo dabeecad xumo zaid ee cunuga inuu ka qaado wuxuu kaloo ka qaadaa cunugaas markii oo shaashada uu zaid kasas ugu barto hadhow markuu waxbarasho gaaro waxbarasho aagaad inuu waxbarashada la qabsan waayo ee ku adkaato maskaxdiisa inuu si sax u fikirto marka haddaba dhowrkan qodob iyo kuwo kaloo badan inay jiraan way u badan tahay sidee ku xallin karnaa marka yacni problemka waa wada maqalnay sidee ku xallin karnaa waxaan ku xallin karnaa waalid markaa tahay inaa adiga xad ilmahaaga u yeeshid ilmahan adigaa dhalay waa ilmo yar naftiisa ma kontrooli karo waalidka asagaa laga rabaa inuu kontrool u sameeyo inuu xad u sameeyo oo waqti ugu xiro ilmahaas inuu u sameeyo maxaa la dhahayay wax uu ku ciyaari karo uu ku mashquulo cunuga in maxaa la banaanka la geeyo lasoo ciyaarsiiyo yacni siyaabo badan lagu mashquulin karaa cunugan inaa wax uu sawiro u keentid inuu waxyaabo isku rarakiba u keentid maskaxdiisa caawinayo waxaa kaloo waalidka u fiican tahay inay sameeyaan inay cunuga horta totaliba ka mamnuucaan shaashada xilliga cuntada la cunaayo waxaa arkaysaa ilmo ayagoo cuntada la siinayo shaashada la siinayo oo la dhahayo cunugan haddii uu wax fiirsanaynin cunto ma cuno
completely qalad waaye yacni wax hooyooyinka Soomaaliyeed inta badan khalad ay iska dhaadhiciyeen waaye oona ah inay ka fogaadaan ayna ka joojiyaan hadda haddii aad tahay hooyo inta arrintaas sameyso please cunugaaga mar dambe ha u dhiibin telefoon inta cuntada uu cunaayo waxaa kaleeto muhiim ah hooyadii aabaha marka ay joogaan ilmaha dhexdooda telefoonka inay ayagana iska fogeeyaan iska ilaaliyaan maadaama cunugan adi tusaale ah u tahay haddii maanta dhan telefoon aa fiirinaysid aa ku mashquulsantahay cunugiina hadduu arko adiga wixii aa sameynaysay wuxuu leeyahay hooyo aaba way fiirsanayaan anina waa inaa fiirsadaa that's why u aragnaa ilmo badan oo waalidkooda telefoonka kula dhego aabihii markuu shaqada ka imaado ilmihii kusoo cararaan teleefonkay ka qaadanayaan ama hooyadii waxaa arkay hooyooyin qaar teleefonkooda maalinta ayaga maba la hambo ilmihii aa ka haystaan oo ka qaataan marka tan completely qalad waaye waxaa kaloo la sameyn karaa parental control sida inaa emailka adi ilmahaaga wax ay ku fiirsadaan adi teleefonkaaga aa ku xirtid wixii ilmahaaga ee daawanayaan aa controlshid waqti inaa ku xirtid waa soo sheegnay waxaa kaloo inaa u sameysid ilmaha waxay ku cayaaraan ina banaanka maxaa la dhahaye aa geysid marka waxaa waaye marka intaasoo shay haddii aa sameysid oo aa ku dadaashid ilmahaaga telefoonka waa ka yareyn kartaa telefoonka inaa ka yareysid cunugan adaa dhashay asiga waxaa waa cunug yar waa control ma lahan haddii aa ku adkeysid oo dhahdeen maya telefoon ma fiirsanay iska qaadid maalintooda oyna maalinta labaad oo maalin saddexaad wuu iska ilaabaa ilmaha si fudud ayay wax ku ilaabaan muhiimadda waxaa waa adiga inaa qof go-aan leh oone yacni wixii go-aanka oo qaatan ku dhegan aana qatid oo aan lagu bedelin cunugan wuu oyna qiiladiis muu adkeysan kari waa iskaga dhiibaa haddaa dhahdid jugjug meeshaada jooga ahaanaysaa oo waxba isma bedelayaan haddaba ilmaha daawan karo iyo waxyaabaha ay daawanayaan also ageka ama sanadaha sidee u cabirin karnaa ilmaha horta sanad iyo barka ilaa 2 sano completely mamnuuc ayuu ka yahay in ay telefoon ama tablet ama tv fiiriyaan ilmaha zaa'id ay u yaryihiin maskaxdooda si dhaqsi u koroosaa ma xamili karaan shaashad totally looguma talagelin cunug 2 sano ka yar inuu tv ama shaashad fiirsado ilmaha 2 sano ilaa 12 sano jiraanne maalintii dhan 1 saac bes ah ku filan inay screen fiirsadaan screenkaas ay fiirsanayaan waa inuu ahaadaa mid adi aa controleysid oo aa la ogtahay wixii ay fiirsanayaan because waxaa la soo daaya marka qaar oo violent oo dagaal ku jiro qaylo buuq ilmaha maskaxdooda waxyaabahaas bedelayo tirada badan iyo buuqa ee maskaxdooda ma xamili karto ilmaha oo teenska ama kuwa hadda soo qaangaarayone ayagana waxaa la rabaa inaad u sameysid jadwal sax ah ee ilmahaas aysan waqti badan screen ku qaadanin si waxbarashadooda hadhow caqabad aysan ugu naqanin hurdadoodana caqabad aysan ugu naqanin waxaa sameyn kartaa timers ayaa sameysan kartaa hadda camal haddaa dhahd maanta waxaa leedihiin 30 daqiiq bas inaad fiirsatiin timer aa sameynaya timerkaas 30 daqiiqa markuu soo yeero inaad joojista aad dhahd hayaha liigu soo wareejiyo waxa la fiirsanooyo adigana go-aankaaga inaad ku adkeysatid ayaga dareenkoodana inaad dhahdid hooy waa ku dareemi karaa waxaan inaad sii fiirsataa rabtay laakiin waqtigaagiyaa la gaaray raali ahoo iska soo wareeji hadheesaa waa ka qaadaysaa maalinka saddaa ka qaadidna ilmihii way baranayaan sababtoo tahay inaadan ogolaanin oo xadkaaga lagu soo dhaafi karin ay ogaanayaan kole wixii aan ka tagana idinka ku dara insha allah soo dhawaada waxaa kaleeto oo ilaabay ha u isticmaalin telefoonka mid aad ku yacni aad dhahdid hadda waxaas samaysid telefoonka kuu dhiibaa ama haddii waxaas aad samaysid telefoonka kaa qaada yacni ciqaab ahaan ama wax adi cunugan reward uga dhigaysa ama hadiyad uga dhigaysa ha ka dhigin telefoonka totally ha u isticmaalin screen inuu yahay reward ama punishment intaasaa kusoo gabagabeynaya fadlan haddii aa nagu cusub tahay nagu soo biir haddii hore noola joogtana aada umahadsan tahay usii sheer gareeya waalidiinta dhammaan si ay uga faa'iidaystaan aada umahadsantiin jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh